وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر والصبح، ويعرج الذين باتوا فيكم وهو أعلم بهم، ويسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ ويقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله walaalyaal, ilaahay baan ugu xamdinaynaa maaragtaane diinta islaamka inagu deeqay inagu nicmeeyey. salaada subax ee jamaca ka soo qayb galay waa salaad aad u qiimo badan weeyaan. waa labada salaadood ee nebigu uu sheegay in dusheena malaa'igtu ay isku bedelayso, malaa'igta habeenkii iyo malaa'igta dharaartii. kuwii xalay toole inala baryey saakay noqonayaan, ilaahay xaggiisay u noqonayaan. daadna markay noqdaan ayuu ilaahay weydiinayaa, ayuu leeyahay: addoommahayga seed kaga timaadeen? xaaladda mar walba addoommuhu ay ku sugan yihiin ilaahay waa og yahay, laakiin waa tashriif uu sharfinayo dadka salaadahaas sida gaarka u ilaaliyey, salaat alcasr iyo salaat alfajr. markaasuu malaa'igtu odhanayaan, iyakoo tukanayana waan u tagnay, iyakoo tukanayana waan ka imanay bay leeyihiin. ilaahay ha inagu daro liiskaas. maalin walba qaa'imadaas ilaahay baa la horgeynayaa dadka khaasatan salaada casar iyo salaada subax ku dadaalay ee ilaaliyey. waagii baryo iyo maaragtaane gabalkii dhacaba casar markii laga noqdana malaa'igtii maanta inala ooshay baa noqonaysa. isla sidaasoo kale markay ilaahay xaggiisa u noqdaan ayuu ilaahay odhanayaa: addoommahayga seed kaga timaadeen? oo khalqiga kale adduunyada ku nool maysan addoommihiisii ahayn, bal waa addoommihiisii, laakiin kuwani ilaahay si khaasa ayuu ilaahay u magac dhabo. wuxuu leeyahay: kayfa taraktum cibaadii? seed addoommahayga kaga timaadeen? lianna xilliga ay hurdadu macaan tahay ayaa qofka muuminka ee ilaahay salaada subax iyo salaada casar ilaahay u ilaaliyey, raaxadiisii iyo xaajaadkiisii buu ka imanayaa. waa salaada uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, habeenkii midkiin markuu seexdo qadaadkiisa haddamba shaydaanku 3 guntin buu ku guntaa, mid walba wuxuu ku dul akhriyaa uu ku yidhaahdaa habeenku uu dheeryaho waa weliya iska seexo. hadduu qofka muuminku habeenkii uu kaco uu ilaahay xasuusta buu nebigu yihi mid baa furmaysa, haddii uu weysaystana tii labaad baa furmaysa, haddii uu tukadana tii saddexaad baa furmaysa. fa asbaxa nashiidan tayiba nafsi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. qofkaas wuxuu waabariisanayaa isagoo naftiisu ay aad nashiid iyo nashaado uu dareemayo, naf furfuran iyo qalbi furfuran iyo weji furan buu la waabariisanayaa. salaada subax qofka masaajidka jamaca soo xaadirana diin iyo adduunyo markuu waxa uu u kallaho maalinkaas ilaahay baraku noloshiisa u gelinayaa. arsaaqadiisa barakuu gelin, cimrigiisa barakuu gelin, caafimaadkiisa barakuu gelin, awlaaddiisa barakuu gelin, xataa tacliim maadiya itu diiniya hadduu u kallaho xilligaas waxa uu u dhaqaaqay oo dhan ilaahay barakuu gelinayaa. laanna waaga berigiisii wuxuu ku waabariistay inuu ilaahay casa wajalla uu jabhadda jidhkeenna ugu qiimo badan waa meesha qofka marka dhagaxa lagu waabiyo uu 2 gacmood u dhigo weeyaan. 2 gacmooduu sidan leeyahay isagu muuna lahayn, bal isaga uunbaa leh, laakiin jidhka waa layidhi meesha ugu qiimo badan bay yidhaha culummadu waa halkaa jabhada. waa meesha ilaahay uu doortay in isaga dhulka loo dhigo. oo meesha maxaa ku yaalla? daakirata qofka bini aadanka daakiradiisa xasuusta halkaa bay ku taallaa baa layidhi. oo qofku hadduu yaraan ku barbaaro ilaahay taacadiisa, weligii allihii qofkaas intuu doonay ha gaadho cimrigiisuye maskaxdiisu isku darsami mayso. laanna yaraantiisii buu bilaabay inuu u dhigo maaragtaane meesha ugu qiimo badan jidhkiisa allihii abuuray inuu wejiga dhulka u dhigo ayuu go'aansaday. marka adduunka dusheediina waxay ahaayeen addoommo ilaahay, laakiin maalinteeba waa u taraysa addoonnimadaasi. dad badan maanta waxay arkayaan salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo zakada iyo taacadda ilaahay qofku uu gudanayo, manfacadeeda adduunkan qofku ku arki maayo in badan, laakiin maalinta la qatan yahay la qaawan yahay waa yowma alqiyaamah, maalinta khalqigoo dhan ilaahay ay u sara joogsan doonaan. yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم ذلك يوم التغابن يوم الجمع لا ريب فيه إلهي القرآن كما يلبضن بك ورمي مالين كاس لباتد أوليه أدعاد هلكا إن يقو بيساب بن آدم كما دحوق الله دول لقب النبي عليه الصلاة والسلام مركاسا قفك ديدد كجركي سكبحي أيات دولك إنتو قلت ضباطا دراع دب هدنا أصو بحدو نبي قولي مركاسا قف والبا هلكي الدنبقيسو أهابو إيمان يا ديدد كيسو قاربو كرامها إيمانا يا قاربو جلبها إيمانا يا قاربو قنت قبطك إيمانا يا قاربو قربها إيمانا يا قاربو هلكا قول الله دو ديدكو إيمانا يا مالك اللقتين يهي اللقاوين يهي قفو عدو قرمة أوباها يهي ما هلا وعشي سدح مالموضة مالمهن أدونك همود وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة مالك أسي لا هو يا وحكوتري ولا آبا وحكوتري ولا دقالو قفوا لهابا وحتريا ولا قبيل با وحتريا ولا أقونتي لهابا وحتريا سمي وما لنت إلهي تبارك وتعالى الله وذهوز جوغين لبريايو حتى جميع الأنبياء عليهم السلام نبي والبا انتو جيلبك أدعو وأرندونو يا ربي لا أسألك إلا نفسي ما أنت نفتي إذا موياني أنا عدك لو هل ما إله أنيق إبدبادي بالنبي والبوليه آدم بالي عليه السلام يا ربي نفسي نفتي إله ما أنت إبدبادي إبراهيم الخليل عليه السلام بأورندونا خلد إله خليلك أن أدقى دقتي أيان إرقك دقنا يا إله ما أنت خليل لماذا يقبض بادي بوليه مالين كاسا إلهي حقي سوحك إيمان دون أغيسيسي إعلان ومأمحي إعلان كاس يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يا عبادي إلهي بأورندون أضوامها يقيو إنك ما أنت دوشينا مرب إيا عبسي من دوشينا مصارنا بالأورندونا كوا صدا لغو أورنا يعني وكوه أدونك إنتي جوغين آياتك إلهي بالرمسنا يعني